واتساب هدا استعمالي جرتي waxa u baahan tahay saddexaasla aha ee xabad afar soo raadinayo baby iyo halka ana idin hayo barnaamijkan stay tuned ma la dhihi jiray wasiirka arrimaha gudaha saaxib saki maroraan ugu shubay aniga nacadkii salaamu alaykum asxaabteeda soo noqosho wanaagsan maalin habeen duhur casr markuu cisho tolboodita oo wanaagsan maantay waa filcilintii bulshada iyo waliba arintii WhatsApp-ka oo laga dhigay official WhatsApp-ka bareefadu ahaan jiray public ee ka dhigeen WhatsApp-ka qol xiran oo daaqadii albaab aan lahayn oo kor laga soo galo aan xiran u ahaan jiray hadeer daaqadii albaab u yeeleen WhatsApp loo daadanayo mar dhow commission waa arinta WhatsApp-ka ah iyo qaabkay bulshada uga falceliyeen ba maanta dul istaageenay hadii aan ugu cusubtahay fadlan channelku waa channelka ay ku soo dhaw gacmo furan commentiga maanta waxaan noogu soo qortaa hadii aad taageersan tahay WhatsApp-ka in dhowr qof lagu isticmaalo yes hadii aad taageersan tahay in dhowr qof lagu isticmaalo no lama dhihi kare no hadaan soo qorayno dhoo xabadiina kor idinka arkay saragow mar raba inaan buuqida ku keeno siiba xaaslayaasha marka hadaad diidan tahay wasiir waa ku salaamay xaaladda ka waran soo qor jaaniga horaan ka fahmaya laakiin hadii aad taageersan tahay yes soo qor hadaad diidan tahay no ha soo qorin baxra galin in gmail-ka kor laga arkaa laga yaabaa wasiir xaaladda ka waran waa ku salaamay legend intaas ka soo qor macnaha waayahay like-tana barnaamijka noo saara waa ka hilmaamina WhatsApp-ka shirkadda Meta waxay sheegtay yuhuudkaas yuhuudo kuma duceynay waxay shirkadda Meta sheegtay in WhatsApp-ka lagu isticmaali karo ilaa 4 qof maxaa 4 qof WhatsApp u ahaa bareef loo ahaabay maxaa 4 qof gaarsii alla dadkan intay u socdaan dhiiqa lagu isku gelinayo waxa la taagan yahay 4taas qof waa lagu isticmaali karaa password buleey allisay saalka uga jeedaan waxa la soo qoray baby habeen wanaagsan ma kala yiri baby habeen wanaagsan ha ii dambeysay password-ka WhatsApp-ka ii soo dir waa bilaab halka ana idin hayo gabagabada barnaamijkan halka idin iftiiminaya bal horta filcilintii bulshada barnaamijkan filcilinta bulshada waxa leh dadka boostiyada qorax ee qoraalka dadka ku madadaaliya reer comment-laan wixii shala qaadateen meeshan wax mid ka soo gashaan tan dadka boostiyada qoray ay dadka muuqaalada duubaa leh bal waxaan fiireynaa marka falcelintii ee bulshada Facebook-ka joogta arrinkan markii ay shalay galab soo baxday ilaa iyo xalay bal falcelinadii ay sameeyeen kuwa ugu xisaab badnaa dadka sida niyadda leh wax u soo qoray waxa kamid ah saaxiibkay Sakariya Maxamed Saalax wuxuu ku leeyahay saaxiibka Mark waa ninka Facebook leeyahay markii ilmo loo dhalay qoftiisa ma dhahday WhatsApp-ka ay ugu soo wareejay xariif oo habeenna inaa soo dahda qora fiir yahuudow walaalo Marko adiga inaa soo dahday hadaa bilowday oo laga shakiyay muslimka Ilaahay ma kabaha ma ul u gelinay macnaha war adiga rafaadka iyo xaaladda guriga ugu haysato maxaa muslimka Ilaahay u dhax keentay arniyo nin wixii isticmaali jiray waa kana bambada hadeer asaga ku qaraxday dadka dhan u qeybay macnaha kii cabaadkooda baxay warkada ina subay karo allaha allamaya malugu sooma malugu salaada war walaalo dhiiq lugaha noo wada gelin war see alla ku waa kan rag rafaadkooda baxay qeylooda qaarna main game bay ciyaarayaan macnaha maskaxeed wuxuu ku leeyahay gabadhii ninkeeda ku kalsooneen bi arintan anfacaysa waa koo gabadhu in ninkeeda ku kalsoonaato waxa lagu galaa jannada labo gaalo wax fiican ma aadan sameeyna bal ku qaadatay main game buu ciyaaraya warniyo janna iyo naar waa dambaysaa qof walba amalkiisu ku tagaa laba xaaslaatay xasan muku ku aqaana maalmahan baar ubaxi wadadaas lagu sheegay xabas dhaxaad raadinaysa janna lagu galaa naar iyo afaaraas ka bax labada xaas walaalo iimaanso baasweeradan u dhiib dumaro ma maqlaysaan gala dagaal soo lama dhigi jirin WhatsApp-ka gala dumaro WhatsApp-ka gala waxyaalaha komisuunta ah ee mar dhow la filayo ama la sugayo maxaa kamid ah baby hadaad igu kalsoon tahay WhatsApp-ka aan kula isticmaalo qac ka weyn 2023 iyo 24 ka soo socdaba qac ka weyn hadaad igu kalsoon tahay WhatsApp-ka aan kula isticmaalo ma jiri doonto lamaanka ragga Soomaaliyeed insha Allah si degdeg u fariisan doona arintaasna qaraar buu ka soo saari doonaa laakiin inta kala fadhigaas baarlamaanka uu ka dhacayo halka lagu sii gaaray ana idin hayo stay tuned waliga hawlwalin waayahay ninkan waa la soo diray yaa soo diray xaaskiisa soo dirtay
laba habeenu inuu maqaaxi 9 saac habeenimo ka imaaday alla libax WhatsApp ka aan ka shakiyay ilaa dadkan teknoolajiyadu ay qoftan way la fahansantaa wixii qabsay rag iyo dhanba zero soo galay rag iyo dhanba oo u dhaxgalay macna oo ay dhikaan ciilkiis ilaahow yahuudka ciilkiisa haduu idhaafay waxaan isku habaaray waayahay kalsoon maxamed waxay leedahay kuwa isqaba waaba gartay ha qayliyaan iskaabulo maxaa idin haayo iskaabulo waa ku ugu daran bee war ninka xaaslaha xabadiisa ama labadiisu iimaansan karaa bal ninkii hadda wax ku masuun u ahaayeen oo xabad raajinay ama laba wax isku dulwaday had 7 sano oo waxa sugayay dagaal ah WhatsApp-ka keen iyo keenima iyo WhatsApp-ka ka soo bixi ma hadan iskaabulo xaaladda ku xun 7 years dagaal lagu dhawaaqay ma waysa wallahi mara dhacdo wallahi 7 sano dagaal WhatsApp-ka keenima ay sugayay iskaabulo waa rag dhigooda meesha laga saro commentiga yuhuudka waxay ku soo qoray hadda aragto yaabaysa cabsi waayo wallahi dumaro meesha ka baxa halkii baan sheegaya waqtiga halka sheegaya jooga dumaro baxa ka baxa meesha hadda dhageystaan xamba idinku tahay ragoo soo dhawaada barnaamijkan waxa kaga gudbi kartaa WhatsApp nasiib baan leenahay WhatsApp kaaga teleefankaaga laba WhatsApp baa lagu isticmaali karaa waagi hore hal WhatsApp lagu isticmaali karaa hadii ahaan lahayd xaalad jiqi ahaan lahayd la hadda waa dumaro waa soo noqoteen ka baxa meesha ka baxa teleefankaaga laba WhatsApp baa ku soo degsanaysaa WhatsApp aan dhala ka dhigaysaa lambarkiisa 44 u dambeeyso xabadii xiriir kula waliba iska bulada xabadii qadka soo gashaba lambarka password lambarka 44 u dambeeysa u dhiibeysaa xabada caawis bartaan waa 44 lambarka u dambeeysa u dhiibeysaa lambarka eber 9 u dambeeyso waxa jira alaab loo hide application barkaas soo degsanaysaa hide application maxaa sameynaysaa WhatsApp dhanba waa qaranay passwordna ku xiran ilaa passwordkaas taabati macna meeshaas ma furmayso hide application meel la gashanaysaa macna baalka telefoonka laga damay maartay check afar jeer markaa ka siisid uu ku soo baxaya passwordka gelinaysaa WhatsApp-ka la soo baxaysaa hadhow check hide macna uu qarso ha fi adduunka teknoolajiyada jooga inta hadii laga soo galo inta laga sii baxaan isma waala bacayaan idinka dareemi haddaad fiberka iyo imo u guurtaan iyo Telegram su'aalaha imaanayso WhatsApp waliga joogo jirtay maxaa ka kixiyay waxa kala wada dada qarsanoosa dhiiqadaas lagu halagelina laba WhatsApp soo degso hal xabo hayr ku qabso eber 9 lambarka eber 9 ka ah hayr ka qabso lambarka 44 u dambeeyso aan dhalka dhigtii WhatsApp soo wadisaba 44 WhatsApp ka keen 44 bay miyu kalsoon tahay 44 WhatsApp ka labadan bari 44 ma ku dhigay last حل واي معناها هاي الابلكيشن iyo laba WhatsApp aan ku ogahay waayahay barnaamijkii WhatsApp ka oo shirkadda Meta ay ka dhigtay in 4 qof ay hal WhatsApp isticmaali karaan maad inta soo go'goynaya barnaamijkan iyo qurux badan waa iga diyaar aan comment qurux badan leeyahay clip subscribe